xilli shalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka dageen ciidamadii ugu horeeyay ee ka socda midowga Afrika AMISOM gaar ahaan wadanka Djibouti ayaa arintaasi waxa faahfaahin saxaafadda ka siiyay qaabka ay ugu howlgalayaan gobolka Hiiraan wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan maxamed cumar maxamuud wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya oo waraysi gaar ah siiyay idaacadda Risaale ee magaalada tan Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ciidankaasi ay yihiin ciidan sahan ah oo horudhac u ah ciidamo kale oo ka socda wadanka Djibouti kuwaasi oo uu tilmaamay in badankooda ay joogaan deegaanka Gode ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. waa sida ku rabtaan ciidamo oo tiradooda gaaray ilaa 40 iyo ka degay magaalada Beledweyne shalay waxayna ka yimid Djibouti ciidamadaas oo noocoodu yahay nooca commando staff ujeedada halkaas yimid waxay inay sahan u noqdaan ciidamada dambe oo imaan doona oo lagu talagalay gobolka sida aan socotaan AMISOM waxay qorshaysatay 4 qaybood inay Soomaaliya ka degto qayb waa qaybtan Beledweyne oo lagu talagalay ciidamada Djibouti qaybna waa qaybtan Muqdisho qaybna waa Baay Bakool qaybna waa Kismaayo soo marka 4tii qaybood qayb kamid ah iyo hadda bilow ah waxaana mataqaana loogu talagalay deegaan ciidamadaas Djiboutianka oo hadda sida mataqaana warbixinta lagu soo gaartay in ciidanka xoogiisa uu joogo Gode uu joogo marka ay saamiyaan kadib ciidamadaas. wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa waxa uu rajo ka muujiyay in ciidamadaasi ay wax badan ka qaban doonaan ammaanka gobolka Hiiraan oo uu tilmaamay in horaanba la qorsheeyay in ay gaaraan halkaasi tan ku saabsan xagga inay wax ka tari karaan xagga nabadgelyada waxaan aaminsanahay kulli in isbedel ay ku sameeyaan doonaan xagga nabadgelyada runtii gudoomiyaha gobolka hadda u magacaaban mataqaana Cabdifataax runtii aad u dadaalay ciidamadii mataqaana oo ciidamo beereedkii marka halka ka jiray oo magaca dawladda sitay waa isu keenay waa isdhexgaleen oo mataqaana hal meel ayaa lagu ururiyay si ay naftada ay ugu noqdaan kaalmo ay ugu noqdaan ciidamada marka Djiboutianka kaalmo ugu noqdaan ay naftada waxa way nabadgelyada waxay ku bedeleen oo waxay mataqaana soo dhaweeyay oo meel bil oo laga sii bilaabi karo marka Djibouti waxa aaminsan maadaama ay yihiin dad Soomaali dad walaalaheena dad oo mataqaana dad isu dhow dad mataqaana isku taariikha dad sabaal gashaday maadaama annahay waxaan filayaa inay mataqaana wax badan ay ka bedeli doonaan xagga ammaanka. maxamed cumar maxamuud ayaa waxa uu sheegay in gobolka Hiiraan uu yahay gobol istiraatiiji ah oo xuduud la leh gobollo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isagoo tilmaamay in sugidda ammaanka gobolkaasi ay muhiim u tahay gobollada deriska la ah gobolka Hiiraan sida uu hadalka u yiri. sidoo kale wasiiru dowlaha caafimaadka xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya maxamed cumar maxamuud ayaa waraysiga uu siiyay idaacadda Risaale waxa uu ku sheegay in looga baahan yahay shacabka ku dhaqan gobolka Hiiraan in ay la shaqeeyaan ciidamada AMISOM si wax badan looga qabto ammaanka gobolka waxaana ugu dambeyn uu tilmaamay in deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan la qorsheeyay in ay gaaraan ciidamada AMISOM oo kuwa hordhac u ahba ay shalay gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.